السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin meel baa joogtiin. haddii ay tahay markii ugu horeysa soo boqotaar kalan fadlan subscribe dheh. sidoo kale waxaa kusoo biiri kartaa barteena Telegram ee Somali Online Opportunities maadaama aan halkaas qoraal iyo sadab iyo waxaa la yiraahdaa wixii headline oo degdeg oo dhan aan kusoo gudbino. maadaama halkan aan sidoo kale video kaliya aan soo gelino fadlan kusoo dhawo halkaasna ku biir oo maxaa la yiraahdaa linkiga qaybta hoose commentiga ayaan ku dhigi doonaa. haddaba soo dhawaada dhamaantiin mar walba oo maxaa la yiraahdaa maalin walba oo axada oo maxaa la yiraahdaa suuqu jimcadii kala soo xirmay oo sabti iyo axad ka soo wareegato isniinta mise axad oo kale waxaan sameynaa waxa la yiraahdaa falanqaynta suuqa wixii usbuucaas soo socda ka dhici kara iyo waxyaabaha laga rajo qabo ayaan isla fiirnaa inagoo asa technical u fiirno insha Allah mustaqbalkana fundamental ahaan waa u wada eegi doonaa hadduu la idmo. laakiin hadda inta badan maadaama dadku technical ay xoogooda saaraan oo technical loo badan yahay soo technical inaan soo gelin ayaan maalin walba oo maxaa la yiraahdaa axad ama isniin aan ku dadaal doonaa insha Allah. haddaba falanqayntan waxaan ka bilownaa lacagta DXY oo ah indexka dollarka iyo xaaladeeda iyo sida uu egtahay sida uu socoto mar walbana maxaa la yiraahdaa update cusub ayaa ka dhaca iyo isbedel mar walbana waa ku qasab in adiguna isla bedeshid marka isbedesho say u socotan inaad ula macaamishid waa ku qasab haddii kale waxa waaye information fiican oo aad ka heli kartid ma jireyso. marka maalin walba marka update ay sameysaa lacagtu marka waa ku qasab inaad shaashada la socotid aad ku xeel dheeraatid. haddaba doorka sidaan u jeedno waxa u jeednaa inuu maxaa la yiraahdaa small down trend ah oo socdo yacni sheeg fursadda weynka oo maxaa la yiraahdaa suuqu waa kana ugu dambeeyay move-kan korka iyo hoostan wax ka hooseeya hoostan hoos ka imaatay oo meelahan imaatayna ma jirto korkaana korka koreyso halkan imaatay ma jirto soo wali go'aanka waxaan ku dhaganahay suuqu inuu abtanan yahay laakiin marka sidaas oo kale ay jirto waxaan ku yiri down trend-ka waxaa ka jira trend yar oo gaarkiisa sida halkan midka ka soo imaado halkan yimid hoostaadii ku soo dhawaaday waa down trend gaar ah. sidoo kale midkan hadeertaan halkan ka bilowday korkan joogana waa mid gaar ah oo asaguna suuqa gaarkiisa ah u sameeyay. sidoo kale halkan midka ka soo socdo oo halkan hadeertaan u socdana waa maxaa la yiraahdaa down trend gaarkiisa wata soo mid walba marka wuxuu u baahan yahay si aad ula macaamul lahayd iyo sidaad ula dhaqmi lahayd maadaama ay tahay inaad faham fiican ka haysatid sida maxaa la yiraahdaa market structure-ka suuqa loo akhriyo. soo daba markay sheekadeen intaas ay iskala soo tagtay waxaanu nimid intaan ugu dambeeyay suuqu muxuu hadda ka sameynhayaa markaad market structure-ka suuqa soo akhrisid. haddaba intaan waxaa ugu jeednaa inuu halkan down trend uu ka soo bilowday halkan low hoose uu yimid lower high-na halkan kale ay tahay halkan ay lower high tahay haddana sidoo kale halkan lower low kale ay tahay halkan lower low kale ay tahay. soo haddana marka waxaan sugnaa waa intii in la mid ah oo waxaanu leenahay in suuqu markuu hadeertaan halkan meelahan tagay oo down trend-kii ku sii socdaa oo hoostaas hoose la taga. haddaba mar haddii aad ogaatay inuu suuqu halkan hoose u soo socdo waxa marka kugu qasaba inaad fursadaha markaas soo socdo oo down trend-kan yarka ku dhismaayo kale aad ka faa'iideysatid si marka aad uga faa'iideysatid lacagaha aad uga faa'iideysan kartid doolarka la xiriira ayaa tagaysaa. tusaale kale waxaa ka mid ah euro USD oo ah beerka ugu fiican oo inta badan indexka markuu go'aan ku siiyo aad uga faa'iideysan kartid. haddaba haddii aad xasuusataan maxaa la yiraahdaa last video oo jimcadii aan soo gelinay oo tradeadii aan ku guuleysanay iyo kuwii markaas macquulka ah aan arkaynay trade-kan ayaa ku jiray 35 bib kastoo 35 bib wax weyn ahayn laakiin handale waxay ogaadeen in galabkii aan galnay suuqu asagoo oo maxaa la yiraahdaa at 5 meelahaas iyo 10 saacad meelahaas aan maleynayay iyo 12ka hadii waqtiyada maxaa la yiraahdaa oo galabkii suuqu si gabaabsiga ah ee New York ayaanu galnay halkan ayaanu ka galnay waxaan sugeynay inaan 35 bib ilaa habeenkii nasi laakiin nama siin 24 bib ayuu nasi laakiin suuqa ayaa soo noqday
meeshii intii maxaa la stop loss keeni ayuu yimid oo halkaan head afka u soo saaray kadibna sidii uu suuqaan ka rajeynayna ayuu sameeyay oo maanta ayuu toos u sii dhaqaaqay oo wuxuu aaday intrigi iyo bartii aan rabnay already wuu noogu dhacay TP-geena oo kandalkan guduuska hadda meesha kasoo noqday ayaa wuxuu inoo tagay TP-geena inoogu dhacay soo mar walba suuqa aad falanqaysid mise intri ka heshid muhiim ahan inaad ka baxdid inaad kasoo yara cabsatid soo risk management haddaad isticmaashay waxaa kugu qasaba inaad suuqa ka leexatid oo intii markii hore aad qurtay ka badan ma kaaga dhacayo intii ogolow intii maxaa la yiraahdaa kula macaamil marka faraha uga qaad suuqa wax danba ha sameynin soo ugu dambeyn waxa ujeedaa in TP-geena la tagay soo waxaas waxay ahaayeen wixii jimcadii dhacay muhiim hadda ma inoo ahan marka waxay suuqa hadeertaan oo sameynaya ayaa muhiim inoo ah soo inaga dhileed kana khamiistii waa inaga dhileed asagana inaguma jiro meesha soo hadeertaan ayaan sugaynaa suuq wixii isbedel sameyn karo maadaama aan DXY idin soo sheegay aan kugu yiri down trendka inay tagtaa qasaba soo hadda waxa ujeedin DXY meel xasaasi inay marayso oo ah meel hadda waxyar laga kicin karo oo meelahan la tigi karo ilaa zoonkaas xitaa noqon karto meel la tigi karo kadibna toos loo soo daadan karo soo marka intaas aad ka arkaysid waxaad USD uga jeedaa sidii si lamida inay hay'aduna sameynayso oo meelahan meel waxa ujeedaa zone inay tahay oo inta la testi gareeyo oo la taabto oo shuruudeena aan ka helno liquidity iyo waxyaabihi kale oo dhan oo suuqu zoonkan inoo imaado mise kan hoos oo kale kadibna uu korkii weli sii wato waa macquul oo waa sidaan fursadda aan ka rabno isheeg soo marka fursadda ugu muhiimsan aan ka sugayno USD waa inuu down trendkan oo soo asturaa ilaa ugu yaraan halkan haddii kalena uu jihadiisa kusii socdaa oo uu tagaa maxaa la yiraahdaa meeshaan dhimaankan hoose waa inuu inoo soo buuxiyaa waa sida maxaa la yiraahdaa aan suuqa ka raja qabno laakiin hadduu intaas inaysan waa at least waa inuu kana lasoo asturaa oo imbalanceyadan ay ku jiraan soo USD sidaas ayaa ula macaamili kartaa ayaan uga faa'iideysan kartaa haddaba beerkeena xiga wuxuu noqonayaa NCD/USD waa official down trend waa jihadeedu waa hoos oo waxaa uga faa'iideysataa waa sell wixii buy ah waa iska yaraanaysaa inuu ku siiyo suuqu laakiin haddii aad lower time frame-ka hoose aad 15 soddonka aad marka qaar waxaa la yiraahdaa fursad isheeg up trend ku heshid waa kaga faa'iideysan kartaa roadskaada haddii uu waafaqay laakiin maxaa la yiraahdaa qasabku waa inaad fahansan tahay down trendka suuqu inuu maxaa la jihada suuqu inay tahay down trend ee caddahay haddaba sidaas oo kale markaad aad heshid hadda waxaa ujeednaa saan suuqa kudu sheegayba kan ayuu kii u hooseeyey haddaba kanna waa laga sii hoos maray waxaa kasii hoos maray halkaan ayaa kasii hoos martay haddaba markaa aragti kan inuu kasii hoos maray kii u dambeeyeyna ay tahay meeshaan kii u dambeeyeyna halkaan ay tahay waxaa fursadda ka raadisaa waa inta u dhexeysa labadan waa kan ilaa hoostan ayaad wax ka raadinaysaa fursadda haddaba one hour-ka xitaa markaad timaadid fursad kale ayuu down trend kale ayaa jirto oo ah lower low lower high lower low lower high lower low haddaba waxaa ujeedaa inuu lower high kale uu qalqaalsanayo meelahan uu sameysan rabo so ayadana waxaan ujeednaa waxaan ka rajo qabnaa waxa la yiraahdo isheeg NCD/USD in suuqu uu at least meelahan inoo tago meeshaan oo kalena liquidity yaroo madax iskula jirjiro waaye kandala isleegleeg ayadana in la jibiyo oo maxaa la yiraahdaa manipulation uu ka dhaco si suuqu uu sameeyo xasilooni oo lacagtu jihadii aan rabnay ay inoo tagto waa sida ugu macquulsan aan ka rajo qabno saacadaha soo socda waqtiyada soo aadan inaan ka helno NCD/USD oo halkaan hoose in la taga halkaan kore in la taga ayaan rabnaa si down trend kale uu sii socdo sidoo kale waxaa ka mid ah beeriska aan isha ku hayno USD CAD ayaa ah beeriskaan isha ku hayno haddii aan USD CAD ayadana eegno
waxaan inaga tirtir. haddii aan ayadan eegno waxaa ujeednaa inuu yahay halkan inuu ka suuq yahay meeshii ugu dambeysay oo trendigu oo macquul uu ka socdo oo intaan ugu dambeysa. haddaba intaan markaa helnay waxaa ujeedaa inuu suuqu uu sameynayo waxa la yiraahdo higher low higher high kale andala halkan higher low higher high waxaan rajada ka qabno inuu suuqu sameeyo. Stiilna waxaa ujeedaa inuu weliba si fiican hadda halkan kor looga kacay oo halkan la tagay kadib in lasoo noqdo aagaan la yimaado kadibna toos markaas loo aado higher high-ga. waa rajada aan ka qabno waxa la yiraahdo isheeg USD card oo halkaan oo maxaa la yiraahdaa dhimayn ah ayaanu rabnaa in naloo yimaado hadduu alla idmo. waa meesha ugu macquulsan oo aan suuqa ka sugayno saacadaha soo socdo. liquidity iyo maxaa la yiraahdaa isheeg imbalance meeshaan oo ujeedaa oo ku jira. waa kana liquidity-na waa kan already waa haysanaa oo bottom ah halkan ayaanu ka haysanaa ujeedaa. so haddii aad 30 timaadid oo kale kandalka si fiican u fiirisid kandalka meesha maxaa la yiraahdaa dhimaanka uu sameynayo waa kan okay. kandalkii ka baxay kan waaye oo bayga ah wey kandalka ka baxay meeshaan oo toos u baxay. kii ku xigo oo seelka ahaa waa kana afkiis waa halkan. so waxaa ujeedaa space inuu u dhexeeyo soo qooli beebs kala dhiman yihiin ayuu saas ku tagay. waagaasaas 8 beeb meelahaas ayaa space ahaa jira. so spacekaas 8daas beeba waa inuu suuqa u yimaadaa oo maxaa la yiraahdaa oo hadeertaan insha Allah inoo sameeyo oo halkan yimaada. sidaas ayaan waxaan ka sugaynaa USD card. sidoo kale waxaa kamid ah lacagaan rabno AUDUSD hayaduna wuxuu ahaa trade maxaa la yiraahdaa maalinka u dambeeyay TP-giina ku dhacay 41 beeb ayuu ahaa. laakiin haddaba muhiimadda hadda ugu dambeeya aan ka rabno maxaa la yiraahdo AUDUSD waa still inuu down trendkii oo inoo sii socdaa. so meeshaan hadda waxaa uga jeediin waa demand zone oo suuqa hoostiisa weli ka bixinin laakiin arjinin inuu suuqu jabiyo si maxaa la yiraahdaa aan fursad kale oo down trend kale aan sii helno. waa inuu tooskan uga soo hoos baxaa kadib meelahan inoogu noqda oo halkan iyo supply ka helnaa oo suuqu meel ku istaagi kara ahaataa. kadibna riskeena kale markuu liquidity iyo counter trend iyo waxyaabahaas kale na siiyo aan all the way doonkaas aan sii raacna. ayadana waa sugaynaa insha Allah. sidoo kale waxaa kamid ah lacagaha aan rajada ka qabno ilaa maanta inaan helno USDJPY waxaa la yiraahdaa ayaduna waa down trend weliba ayadu waa dhowdahay oo waxaa ujeedaa inaan halkan aan ku yarahaysano waxaa la yiraahdaa supply zone. suuquna uu inoo soo testigareeyey oo halkan inoo testigareeyey kadib waxaan sugaynaa ilaa toos loo soo buuxinayo maxaa supply-ga. kadibna kandalada ugu horeeya waxay sameeyaan iyo informationka inoo sidaan ayaan akhrin doonaa. kadib ayaan go-aan ka gaari doonaa. liquidity-na meelahan ayuu ku jiraa hadaad maxaa la yiraahdaa si fiican u aragtid halkan ayuu liquidity ku jiraa oo waa kana. ayadana meeshaan ayaan rajeynaynaa in insha Allah intrigeeda saacadaha hoos soo socda insha Allah aan ka helnaa oo all the way down trend ayaanu ka rabnaa. ayadana hoostaan hooseysa inaan helno ayaan rajeynaynaa biidnillah. haddaba lacagaha kale oo aan rajada ka qabno waxaa kamid ah lacagta Ingiriiska. waxay ku qisatahay qisadan waxay bixinaysaa laba qisada JBBUSD oo kale. ayadana waa waxa la yiraahdo waa down trend oo official ah
supply aan ka sugeynana waa midkan waaye liquidity-geena yarka aan helnayna waa kan. So all the way waxaan sugnaa waa in la tagaa, kadibna markii la tagaa waa inaan la macaamilnaa in hoostan iyo kandhalada kale oo bilaabanaya siday information inoo siiyaan ayayna sugeynaa. laakiin waxay u baahan tahay xasilooni gaara inaad si gaar isha ugu heysid ilaa halkan hoostan go-aanka laga qaadanayo. sababtoo ah haddii aad ku degdegtid oo halkan meelahan aad toos kaga gashay adoo go-aan ma suginin, suuq waxaa laga yaabaa inuu all the way korkaas kugu aado oo meelahan meel la jebin karo ay kugu noqoto, oo imbalancegan supply-gan ah lasoo asturi doono meeshaan inay kugu noqoto maxaa la yidhahdaa supply suuqu soo testigareeyo ayaa laga yaabi karaa. So waxaad ku degdeginin information dhammaystiran ilaa ka heshay candlestick waxba ha gelin. haddaba beeriska aad kaga faa'iideysan kartid waxaa ka mid ah JBP CHF maadaama saas dhown trainkaas aa ka heshid maxaa la yidhahdaa lacagta indexkeeda JBP CHF iyadana waa dhown train oo official ah. waa kan hoos kale ayaa ka hooseysa oo tan ah. kadibna waxaan sugeynaa ilaa aan ka heleyno maxaa la yidhahdaa information dhammaystiran in supply-gan lasoo buuxiyo, kadibna waa la tegey waana laga soo daatay waxyar inta lagu noqdo ayaan sugeynaa. iyadu waa dhadhowyaa tradekan insha allah waa soo diri doonaa bartaasi telegramka kusoo biir. meel tradekan macquul waaye. halkan markii la tago kandhalka ugu horeeya ayaan sugeynaa insha allah markaan go-aan ka qaadano, kadib all the way downkaas ayaan sugeynaa insha allah. aan ku kulmayno muuqaal lamid ah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.